بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu kusoo jirnay barashada software-ka Autodesk AutoCAD. waxaynu soo gaarnay chapter-ka 7 cashirkiisa 6. cashirkan waxaynu uga hadli doonaa sida loo delete gareeyo ama loo tirtiro layerada farada badan ee blocks-ka ah ee ku jiro layerska computer-ka si default-ga ugu jiro sida loo delete gareeyo ayaynu eegaynaa. layerada ayaga ah looma delete gareeyo sida caadiga ah oo ma icon-ka delete ku qoran ama meesha laga doorto creation layer ama setting layer ama copy delete isku jiro ma ka aqbalayo. haddaba aynu fiirino ciladahaas iyo sida loo xalliyo. markaad imaado inta waa kana layerada farada badan ee aan ku sheegayo halkan waxaa ku jira haddii aad fiiriso meeshan hoose 189 layer 189 layer ayaa ku jiro. waa kuwa layerada farada badan waxaa laga yaabaa darsiyadii hore aan kugu tusaynay sida loo delete gareeyo ama sida loo create gareeyo ama sida loo set gareeyo inaad isku daydo inaad tuurto layerada farada badan balse ay ku suroobi weyday. caawa ayaynu xalinaynaa insha Allah. tusaale ahaan haddaba aan ku tuso intaan layer baa meesha kugu jiro waxaa damacday inaad inta highlight baa saartay tusaale ahaan kaas oo kale yaa waxaa damacday inaad delete dhahdo. markaad delete dhahdo mawjada dialog box ku soo baxayo wuxuu kada select layer was not deleted buu ku lama delete gareyn karo. marka haddaba ciladan seeba loo xaliyaa ama ka dhigo kuwa badan right click deh delete deh waa kana taana ku soo baxay 12 ayaad select gareysay laakiin maxaa lagu yiri could not be deleted lama delete gareyn. haddaba sidee baa loo xaliyaa problemkan waa ahmiyada ama waxa uu ku saabsan yahay cashirkeena 6 ee chapter 7. hagaag haddaba iska xir dialog box-kan waxaad imaadaa command meesha hoose instruction-ka laga siiyo AutoCAD-ka waxaad qortaa layer maaya layer iyo delete oo la soo gaabiyo qor layer iyo delete ka soo gaabiyo maxaa noqonaysaa layder markaa qortid enter dheh. markaa enter dhahdo meesha wuxuu ku yidhi select object or layer to delete or name dooro. markaa name doorto waa kan waxaanu dhan waa layer ku yaalay. hadda layeradina waxay ahaayeen 180 iyo xogaa soomahin. hadda مثلا wax badan aan delete gareyno مثلا intaas dhan select garee. marka inta aad doorato okay baad leedahay. wuxuu ku yidhi 51 layers will be deleted. all objects on this layer or referencing this layer will be deleted. maxaa marka delete layers waa ku daayay marka. haddaba aynu hubino inay naga baxeen ma xasuustaa intay ahaayeen layeradeenii 136 noo hartay meeqay ahaayeen 180 iyo xogaa. haddaba tana marka qayb kale oo intii ah ama kasii badan aynu tuurno tusaalaha no tan kuma shaqeynayso. saa markaad delete u dhahdo haddaa kaa ku dhufatid ama right click dhahdo dialog box ayaa kuu soo baxayo kuna sheegay inaad delete garin karin. haddaba ma xasuustaa ka jawaab maxay ahayd. okay intaad imaanaysaa command maxaa leedahay label okay then name dooro marka waa kuwaana marka wax badan aan tuurno tokadan intaas dhan tuur then okay deh 129 layer tuurna tokadan okay sii deh then aynu soo furno markaa fiirino meeqay hartay 7 la hartay bisa yani wax badan oo tuurnay fahmisa. sidaas ayaa loo delete gareeyaa. hal mar oo kale aan ku celiyo iska cancel gareeto oo kadib labaad ku celinayaa. waxaad imaadaa command maxaa leedahay label click deh name dooro marka name doorato dhowrkan xaba hartay inta ayana ka dooro then okay deh delete imaw hubi waa kana marka waxaaba harayba 4 layer bas ah marka lagu daro midka current-ga status-ka hore oo soo sheegnay darsiga labaad midka tigta saaran tahay
waa layerka markaa la isticmaalayo. inta ayuu ku saabsan darsigeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.